waryahay dumarku soo nafteen iyaga faraajile ma oo in la dhawraa maxaa iyadu u in daalin afarta la kiciyo la guumaysta biyo daami وهويدا cunto kari وهويدا diid oo ورد دغسو هويدو maxay ka jawaabtaa hooyadu maxay gabadhahan u dhashay marka dambe inay ku nasato ma yaalkaygu waa weynaadaan iskoolay wax gaaraan habadaasho inay ku nasato imaynigiyo iminka jiniido awlaad balaynayaan afarta kicin qofkii labada biyaha sug caawa waa biyihiis qofkan way war waxay dumarku markay dulaan la soo noqon lahayn waa dhibtaa meelan bay leedahay waar waan ogaadayba sheekadoodeeda ma nool hablo wallah aduu shaqada la wasuugay hurdadii boqorkaad u dhigtay aye waa boqor waa gaari kaala dee gabdhaha waraa la iska daya wallahi bilaa kuma seeradaya ad inaadan magaalo marka la joogo maa la kala garan karaa way ku wada labisteen waa kuwa sekretarada ministeerada wada fadhiya iminka hablaha nila shaqeeya ayaa garan karaya doqonimadooda lama garan karo is khatarin iska wada dhigaan bula iska kadigo saar may samayso tag saa kala samaysay koran maba samaysay oo reeru inay isla balanbalaan subaxiiba ama habeenimo iska sii wada diyaarsado wixii min doona aastiya toon habeenka la sii kariyo nafsi meeqaadi qofku وجيبه rag carabi barkaada oo kuleelso Ewe ku faanba. hewe sitaan ba qaado furun iyo niitalaagaygii ninku dilaya ka bitalaga weyn laba hal oo furun laba hal iyo bar furun iyo niitala iyo dariu shaxal isku garab dhigay ninkan ma barjeeyo markuu kaco labada furunka iyo barka waan us gacan ku shalma iyo waa waaftiisa lagu leeyahay marka cashiriisu waxay noqon kartaa aniga ay shay waa faja oo niitala saa loo dhex dhigaya shaqo dhan bay galaysaa islaantu labada duurnimay bilaabaysaa say u xarbinayso caana shaahi dalooy maalinay geeri yar tagtay waa ka maxaa iga may dhigtaa waafta waa qof weyn baa tahay xishoon baa keenay waafta qofka